howlgalkani oo maalintii labaad qaatay ayaa ciidamada qalabka sida waxay ka wadaan jidka dheer ee xiriiriya degmooyinka Matabaan iyo Beledweyne ee gobolka Hiiraan. howlgalladani ayaa waxay yihiin kuwa meesha laga saarayo maleeshiyada kooxda Al-Shabaab kuwaas oo bilaabay in ay gacantoogaleysi ka sameeyaan wadada. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida ayaa gaaray dhowr deegaan oo dhulka buurleyda ah halkaas oo Al-Shabaab mudooyinkii soo dhaafay gaadiidkii dadweynaha ay lacag baad kaga qaadan jireen. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan ayaa sheegay in maleeshiyadkan yihiin kuwa aad u tabar daran loona baahan yahay in la dabar gooyo. annaga maalmahanba waxaanu ku jirnay howlgallo aan kula tacaalayno nimankan imtixaanka ee shabaab ee ummadda Soomaaliyeed dhiigeeda caadaystay. allihii abuurayna danuub inay ka galaan oo ay been ka sheegaan ayadana caadaystay. waxaan rabaa laba arrimood saaka inaan fariin u diro ama aan la wadaago waxa runta oo jira. dawladda dhexe ee Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa waxaan biri qaba karin ayaan maanta qaba karnaa oo maxay yihiin maanta waxa abaabulan dadka waxaa diyaarsan rajo badan laga qabaa doorkii dawladnimo ayaa shacabku rajo ka sugaya oo rajo ka qaba inuu helo. waxaan codsanaynaa oo aan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasaaradda gaashaandhigga taliska xoogga dalka Soomaaliyeed aan ka codsanaynaa maanta fursadaan haysanaaye fursadda inaan laga beerdarayn in laga dulqaado dadka shacabka nimanka dhiigacabka ah ee caadaystay dhiigooda banaystay. war nolol ma ogola oo horumar ma ogola oo ma ogola xorriyad ma ogola oo aabbaha muxuu ku dhalay ayay u dilayaan dadka dawladda Soomaaliya. xildhibaanadii deegaan doorashada ka soo jeeday waxaan ka codsanayaa maanta daruufta jirta ee dadkooda haysata colba haysta abaarina way haysataa. abaarta Allah qaadaye colka allana inaan kaashano gacmaheennana aan isu geyno. waxaan codsanaynaa in naloo soo gurmado oo imkaaniyaadka aan u baahannahay nalala soo gaaro. Cabdishakuur Ismaan Cali, warbaahinta qaranka Beledweyne.